xubbigaas muxuu yahay waxay culimadu waa mayl waa janjeer xubbiga jacaylku maxay waa mayl waa janjeer aad u janjeeraysid qof khalqi ilaahay abuuray hagee ugu janjeeraysaa qalbigaaga janjeersamaya wixii kale oo dhan ka soo jeesayo hiblaayo u arkaya hiblaayana hebel u arkaysa wax kala ma arkayso sina wax kala ma arkayo maylka waxa dhadaa jacayl baa dhadaa jacaylka noocaasiya quraanku buu ka hadlay mise kama hadlay oo ka hadlay quraan waaqic buu ka hadlay islaan la oran jiray sooyaqada yiraahdaa oo boqorkii masar qabi jiray fircaankii iya inan yaroo qurux badan oo nabi ilaahay bay jeclaatay yusuf ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala qad shaqafaha hubba qad shaqafaha hubba shaqafaha waxa weeyaan haddaan ku macnayna afka dhalinyarada waxa uu weerariyay jacayl baa intuu haleelay indha tiray dhaga tiray qalbi tiray aqli tiray markaabay wax kale arkeen ilaa yusuf maayn way waartay qad shaqafaha hubba markaas xubbiga noocaasiya culimadu waxay dhahdeen qofka binaadka midna ninba gabar jeclaaday gabadhii uu jeclaaday ma qabo geeri baa gabadha ku dhacday odaygii baa dhintay waa gabadhan wallahi la guursaday fiicantahay quraanku si ajiib u cabiray wuxuu yiri ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا وحويا قبضي مركا ونيكو زيارتو العلوم الهدين قبضي ونيكو كدنت أبا أوفري أي نفتنا يرد دونيس سيدا اللو قدر يجي وأفكر رجوتا سيدا اللو يعني سيدا اللو مارتي شكرا شدات إنه حمراوتي لماذا رأيك غفرتي الله يا سيدا أسم قراءك ورأيحولي ماشي أتاقى يساوي حدثها قبضي إيه إني لراغب فيك يا بريها لا صعد marka ciidu ka baxdo meel kale eegina way ugu farataarad iyo leedahay waxa oran kartaa wallahi innaki naag wanaagsan baato in lagu daayo maaha naag saas yani waa hasaawe edeb leeyahay alaabta iska caadin ka maahin baa qurux badan weeyaan marka quraanku ilaahay halkaas u gaarsiiyay oo quraanku waa kitaabka ilaahay wuxuu qoran tahay war hal balaminay hadal fiican dhaha marka jira shaqashanisiin hadalkiina qurxiyo illa an taqulu qawlan ma'rufan bi ilaahi النبي صلى الله عليه وسلم واسكا فديا لو waxa looga waramay gabadha la Safiya bint Huyay ibn Akhtab dagaal baa dhacay saxaabadii yahuudi dhexmaray waa la soo maartay xidha gabadha waa dadkii la soo helay sabigii bay ku jirtay waa la hayaa gabadha waa loo waramay waxa gabadhaas waa gabadh qurux badan baa nabi ali waa nabi maxamed waa bashar nabi gabadhii si looga waramay ba ajibis wuxuu bal u yeedha bal gabadha doonay والله دون قبدي ولا سوه الجوجي حديثك وحوليه بخاري مسلم ورنيه النبي ما كان فلما نظر اليها النبي مركو النبي اغي صلى الله عليه وسلم او اغون بس محو كور نيكي قبدا سو قفسداي دلي ادونته واحد وحو قبدا مid kala qaado iska siidatan اعتقها قبدا خري marka xoriyada فاعتقها النبي وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الى وجعلاده uu xoreeyay adoonsigii buu ku xoreeyay kadibna uu mehriyo uu guursaday nabiga kaleey salaatu wasalaam marka ma dhici kara jacayl guurka hortiiba ka hadlayna haawiyo laakiin soo dhici kara sheekh ali dandaawi dhado culimada waaweyn muslimiinta oo sacuudiga ka akhrin jiray darsi maartay idaacada televisionka sacuudiga ayuu dheer sacuudiga wuxuu yiri sheekh gabadh ma jeclaan karaa hal mumkin uhibbu bint علماء دلمون بيقولون علماء أنا أقول جل وعلا وحرام بيقولون شيخ أو حدقيس ممكن تحبها لكن كن رجل وجعلانك تاور قبضها لكن ننهو نن محاكرتها دي مركز جعلات الجوي وأدمين وأتكفين ننهو ننسكاهو جعلك أجا حجسو رجل ماذا حجسو ساس يكون مكان أوكي مركز حبك وأدعك قبل الزواج بعد زواجنا قول كدبين إسلام وعود حبك وادعي كرا يسمونه وينو دعبا النبي صلى الله عليه وسلم خديجة كوربا مؤر خديجة وانجعلها مؤر خديجة ويجعشها مؤر حول حديث كاسنا وحديث صحيحة حول النبي يقول إني رزقت حبها خديجة إلهي يوحي أرزاقي ويقول شبي رزق ويا جعلك
جعلك الخديجة وهيو حب ماله ورزق إني رزقت حبها نبيغو جعلك خديجة مركو كورمي قبل باوي متى حديث كله صحيحة سو زيارة داخل كيسا وأيو نهالا نبيغي أوفجعوس أوبودي وحول باكي مكفري وسوقري وفريسي عنتوسي وحول بوقبتي عاشا فردو يابا هذا محا نبيغي هلا سلامتا دوقد إيه قودي سوسو دويني سلامتي مرحي مركي سعطي هي كانت العاشا وما دوقدا كعجبسي ما تورنا فريسوي ده ومساكي با قلي ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تاتينا ايام خديجه كانت تاتينا وحي نوع من جرتي ايام خديجه ايام خديجه قرقريده وايام مدن ولا قروح بدن وجعيله كانت تاتينا ايام خديجه ايام خديجه عاشا وسيكل الله تبارك نصيب عرك الله هي مساكي waxay tiri duq gabowday oo balaayo ahayd oo dhimatay ilaahay kaaga bedelay tu ka fiican oo ina yaro anoo kaleeta iyo hadal haysaa u buus nabi wuxuu dhageysanayaa hawaalo ilaahay wax ka khayr badan khadiija imasiibo ma abdalani allah khayran minha limaada aamanat bi wa irmaysa markay dadku dhan gaalahaayeen وواسطني بمالها حولها دينتا جلسي markay dadkoo dhan ii diideen iga xarimeen ورزقني منها الولد إلهي أبط في يودسي تضبط أبط أن ضلي لحبة كانت صفية دائما شيء رضي الله عنها بعلمها إبراهيم كانت أنت كلتورد لحدة إلهي يودي صاحب مركا وحكي خير بدل خديجة ما هي رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عاشر النبي آدم جعله خير حب وبحالو قفينه حب نبي جعله عاشر رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحال لي مركو حنوستي يورنجري او سكرات موت بريها كان هي مركو دمركو بريها كان markaas ay dadaan waxa tahay xafadii filan hadana ma bariha keen ahay wuxuu doonayay qado 10 dumarkii way kartay waxa nabigu 10 iska doonayay inta isku yimaadeen shir galeen badadeen ya rasuulallah 10 iska hadii inta ku hadhay 10 wajaayk marka uu 10 rasuulku yiri 10 horta adi waa ku xafidin marka adi nacayso marka adi jeceshahay raali tahay wax kasba soo gartay ka tir wuxuu marka aad فرحانة تهي وحاطر هذا مركز دارنيسا ورب محمد إله محمد باكو دارت مركز هذه أنا قلت لك ورب إبراهيم باكو هذا إله إبراهيم باكو دارت مركز بيت والله وابكرت ما قعدوا باكتك ياي واسكا جعله تدنو ياتيس عظلم ياكو نعي كريت مركز وحاس waxa uga jeeda jacaylku diinteena uu ku jira ma aha waxa ka barayna gaalada iyo reer galbeedka iyo buugaanta ka akhris ma aha isku celiya su'aashu watan سنين جعلكو او دنتا او دشا او كبعا او جيرودا او حنوستا او دنتا marka aanu barabo maxaa dila maanta inaan ka sheekeyno waxaan rabnaa inaan caawas fiican hooyano waxaan ka sheekeynaa jacayl maxaa koriya waxaan sheegaynaa 10 amba 12 shay oo jacaylka korisa bal inta aan sheegin jacaylka waxa koriya waxaan jecelahay horta jacaylku wuxuu baraa shan mustawa jacaylku mustawaha waa jacaylka bilaabo maxay waxaa uu ka bilaabmaa aragtida qofka bini aadan kastiin iyo naagba gabadhi wiilba jacaylku wuxuu ka bilaabmaa aragtido dhan nabigu muxuu sallallahu nimba guursanayo uu yimid rasuul guursanayo wuxuu undur ilayha fa innaha adwam wa aq indaha ka buuxso waxaad guursanaysaa iska eegis shaamil marka jacaylka koobaad wuxuu ka bilaabmaa aragtida waxa xubbul mahadala an-nadari cilmiga nafsiga lagu diraasaa psychological jacaylka indhaha jacaylka labaad waxa dhada xubbul lafdi qofkii aad jeclaatay deema daawan maalinka samadeego waa tagi waxa aan ku jeclaado sharciga ilaahay ku dhamaysan iyadoo waxa ku leeyahay wiiliyo waan ku jeclaadee han dhamaysan ee kornaysa xubbul lafdi marka maxal waa ina sheegtid ina jeceshahay qofka haka qarini hadii kale waxa ku dhici cudur qalbiga dila yaa jira oo psychological ka oo qofka binaada ka dhowtole u diidaba inuu guursan waayo rag ma jira konton lixda guursan waayo maxaan helay marbe waxa kamida sheekh Said Qudub loo ranjay ma guursan maxaa guursan gabadh uu jeclaaba laga guursaday hadeed uu guursan waayo علماء العزاب تقول برسيل وطيمية يام غزالي رحمهم الله وكلمات حبك صدحات لبدا حبي قولك يكون رينكرا حبك صدحات معي وحب الجسد جعيلك مركون نقضي نظري أركتي ونقضي
lafzi waa inuu noqdo jidh waa in labada jir isgaaraan haddii isgaari waayaan waa guban sidii raggii berigii hore reeyad u jeetay marka xabas gaar shito dhamayad yadu ma tasgarata waa taasi socota yadu ma ka dhaxkaa la haddii kale waxaas ma waa inuu labada jir isgaaraan waa inuu liqaagii dhaco xamiimi soo dhacaya guurkii sameey marka labada jir istaafstaan xubbiga jisda ay madagista cadaway xubbiga afraad waa maxay waa xubbi shucuuri bala mashaa'irtii markaas kale sadaraanadii nafsiga qofkii jirkii way salaan jirkii ma kala daalayo naftii baa loogu baxaya waxa isguursanaya maaha labada jir waxa isguursanaya dareenadii ma iska yeelnaa xubbiga shanaad ugu dambeeya maxay waa xubbu aqli hadii tamaanka isguursanaya maskaxda oo waxa weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri war gabadha hadaad ka aragtid dhibaato mu'minada ha ku nicin aqli ku eeg fa in karita minha khuluqan radita minha khuluqan akhar هذا وحكينا عدي وحكى لكم في عنها والعكس صحيح